بسم الله الرحمن الرحيم كلتو عنو وناكسن إذ الكيمبا هل كان ومجن ميديا أنا ونواحنا هي عبد القادر محمد سجالك بيش ديسمبر أيين وجود جرنا سنة لوضع كونيو شانيا لواتنك برامج كان نكون صاحب الواحد كل وذاك دونا مدحوينها دلك إريتريا نك لقوا مجا سياسة فرق أي واحد وسفر أفر مالن قالن دونا كجاري مقالة الرياض دلك سعودي عربية isagoo halkaas kulama kala geedsan kula qaadanaya sida la tilmaamay boqorka dalkaasi Sacuudiga boqor Salman iyo sidoo kale dhaxal sugaha dalkaasi Mohammed bin Salman sida la tilmaamay safarkan uu madaxweynaha dalka Eritrea uu ku gaaray dalka Sacuudi Carabiya ayaa la sheegayaa inuu salka ku hayo sidii labada dawladood ay uga wada shaqeyn lahaayeen xiisada ka taagan badda cas iyadoo si gaar ah xiisada ay ka dhaxayso dalalka Ethiopia iyo sidoo kale dalka Eritrea gobolkan ayaa hadda waxa ku looltamaya dawlado waaweyn si ay xalaba ku daawateen warbixinadii ay la wadaagnay Mareykanka iyo Shiinaha ayaa sidoo kale waxa isku hayaan xiriirinta iyo sidoo kale in xiisada gobolka la dajiyo si gaar ah arrimaha ka dhaxeeya siyaasadda farqa iyo dawladda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed Sacuudi Carabiya waxa la tilmaamay inuu quudareynayo inuu gacanta ku dhigo mid kamid ah dekedaha ay dalka Ethiopia hadda doonayaan inay ka qabsadaan Eritrea waxaana la tilmaamay inuu Sacuudigu doonayo inuu xasilin weyn uu ka sameeyo guud ahaan dalalka ku teedsan badda cas waxa la sheegay inuu dhawaan heshiis dhanka dekedaha ah oo markaas la gaaray dalka Djibouti sidoo kale hadda waxa uu heshiis kala gadsan la gaaraya ayaa la tilmaamay madaxweynaha dalka Eritrea ninka lagu magacaabo siyaasad farqi Sacuudigu waxay hore u joogeen oo ay taageerayeen madaxweynaha hadda ku meel gaarka ah sidoo kalena taliyaha ciidamada ee dalka Suudaan ee magaalada Port Sudan la yiraahdo ku shaqeeya Abdel Fattah al-Burhan Sacuudi Carabiya waxa ay hadda dhinacooda taageero xooggan u muujinayaan ayaa la yiri sidii siyaasad farqi ugu guuleysan lahaa xiisada gobolka ka taagan dhinaca kale Ra'iisul Wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxa lagu wadaa toddobaadka soo socda inuu magaalada Addis Ababa uu ku soo dhaweeyo ninka maamula ama Ra'iisul Wasaaraha dalka Hindiya oo lagu magacaabo Narendra Modi sida la tilmaamay warbixinna hordhaca oo la sheegay ayaa waxa la tilmaamayaa inuu Ra'iisul Wasaaraha dalka Hindiya booqashada uu sanadkan ku tagi doono magaalada Addis Ababa ay noqonayso tii ugu horeysay dhowr iyo 10 sano inta la tilmaamay waxa la sheegay in Ra'iisul Wasaare Hindiya oo xilka haya Ethiopia ay ugu dambeysay sanadii 2011 waa intii uu xilka hayay ninkii geeriyooday Malla Zenawi sidoo kalena TPLF ay xukunka dalkaasi gacanta ku haysay Abiy Ahmed iyo sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha dalka Hindiya dhinacooda waxa la tilmaamay inay ka wada hadli doonaan xiisada geeska Afrika ka alowsan si gaar ah waxa la tilmaamay in Abiy Ahmed uu taageero ka raadsanayo dalalka ku bahaysan xilligan BRICS waxa loo yaqaan ama ururka BRICS loo yaqaan oo ay ugu waaweyn yihiin dalka Ruushka Shiinaha iyo sidoo kale dalka Hindiya oo markaas qayb ka dalalka ururkaas ku midaysan qodobadaas iyo saaxiibayaal siyaasadda iyo xiisada Eritrea iyo Ethiopia u dhaxaysa wararkii ugu dambeeyay ee laga qoray ayaan barnaamijkeedin kula wadaagi doonaa saaxiibayaal nagu soo biiro oo barteena YouTube-ka Magan Media subscribe ku samee sidoo kale muuqaalkan la garay lana sii wadaag saaxiibada si uu meel dheer u gaaro aynu ku bilownaa madaxweynaha dalka Eritrea ninka lagu magacaabo siyaasad farqi ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada Riyadh ee dalka Sacuudi Carabiya halkaas oo la tilmaamay inuu kulama kala gadsan uu kula yeelan doono madaxda ugu sareysa boqortooyada dalka Sacuudi Carabiya siyaasad farqi in gaaraysa 4 maalmood ayaa la tilmaamay in booqashadiisu ay qaadan doonto Sacuudi Carabiya iyo Eritrea ayaa dhinaca kale lagu wadaa inay heshiisyo military ay markaas gaaraan sidoo kalena waxa la sheegay inay ka wada shaqeynayaan sidii loo xasilin lahaa amniga guud ee badda cas iyo sidoo kale gacanka cadmeed oo baddaasi ay markaas labada dawladoodba ay maraan waxa la yiri warbixin laga qoray madaxweynaha dalka Eritrea siyaasad farqi ayaa maanta ka ambaxay caasimadda dalka Eritrea ee lagu magacaabo Asmara isagoo u safray boqortooyada Sacuudi Carabiya si uu uga qayb galo socdaal shaqo oo markaas labada dawladood dhexmari doona warbaahinta dawladda Sacuudiga ayaa sheegtay in madaxweynaha lagu soo dhaweeyay madaarka Riyadh halkaas oo uu ku qaabilay amiirka gobolka Riyadh kaas oo lagu magacaabo dalkaal Mohammed bin Abdurrahman bin Abdul Aziz Al Saudi sida la sheegay wasaaradda warfaafinta ee dalka Eritrea iyo sidoo kale wasiirkeeda Yamana Gabar Maskal ayaa dhinacooda kale waxa ay sheegeen in madaxweynaha dalka Eritrea uu Sacuudiga u tagay socdaal shaqo 4 maalmood martina uu yahay boqorka guud ee dalkaas Sacuudi Carabiya boqor Salman bin Abdul Aziz sida la tilmaamay wasiirka arrimaha dibadda dalka Eritrea Usman Saalax ayaa isaguna qayb ka ah wafdiga madaxweynaha dalka Eritrea u raacay Sacuudi Carabiya
waxaana la sheegay ama uu isaguba ka warbixiyey in inta uu markaasi Siyaas Afarqa ku sugan yahay gudaha dalka Sacuudi Carabiya uu kala hadli doono sidii Eritrea iyo Sacuudi Carabiya iskaashi military iyo mid dhaqaalaba ay u sameyn lahaayeen muddooyinkii u dambeysaba Siyaas Afarqa waxa uu raadinayay inuu helo gaashaanbuur xoogan oo markaasi haddii Ethiopia ay dagaal ku qaado dalkiisa uu kala hortago in ka badan in gaaraysa anaade 5 maalmood ayuu ku tagay magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar halkaas oo kulamo kala gadsan kula qaatay madax Carbeed oo ugu horeeyo ninka Masar maamula waa Cabdi Fattah al-Sisi iyo sidoo kale madax kala gadsan oo dalalka Carabta markaasi ka soo jeeda hadda Sacuudi Carabiya ayuu Siyaas Afarqa gaaray waxaana la tilmaamay in kulanka uu la yeelanayo boqolka guud ee dalkaasi Sacuudi Carabiya iyo sidoo kale dhaxal sugaha hadda xilkaba ku shaqeeya Maxamed bin Salmaan inuu noqon doono sidii labada dawladood ay isu kaashan lahaayeen Sacuudiga ayaa la tilmaamay in Ethiopia iyo sidoo kale Eritrea hadda uu jiro dhinaca Eritrea Imaaraadka Carabta ayaa iyaduna dhinaca kale ee Ethiopia jirta taasoo la tilmaamay inay halkan ku kala duwan yihiin Sacuudiga iyo Imaaraadkuba geeska Afrika waxa ay doonayaan inay saameyn ballaaran ku yeeshaan Soomaaliya ayay wada joogaan inkastoo hadda lagu taxliiliyo in Soomaaliya Imaaraadka Carabtu uu markaasi ku xoog weyn yahay Imaaraadka iyo Sacuudiga sidoo kale waxa ay ku kala qaybsameen siyaasadda lagu wajahayo dalka Suudaan Sacuudiga boqortooyadiisu waxa ay la socdaan oo ay dhaqaale xoogan siiyaan sidoo kalena ay taageeraan ninka ciidamada militariga haddana dawladda ku meel gaar ka hogaamiya Cabdi Fattah al-Burhan kaas oo u ballan qaadeen inay kala shaqeyn doonaan sidii ay ciidamadiisu ugu guuleysan lahaayeen inay kooxda RSF markaasi ka guuleystaan Imaaraadka Carabtu sidoo kale waxa ay taageero xoogan u muujiyaan ciidamada RSF waana halka markaasi meel kale oo ay ku kala duwan yihiin waxa la tilmaamay in Sacuudigu uu wax ka ogaa safarkii u dhawaan madaxweynaha dalka Eritrea uu ku gaaray magaalada Port Sudan halkaas oo kula kulmay madaxweynaha dalka Sudan ciidamadana haysta Cabdi Fattah al-Burhan iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalkaasi oo kulamo kala gadsan oo ku qaatay muddo 2 maalmood oo ku sugnaa waxa la leeyahay Sacuudigu waxa ay markan doonayaan inay dhex maraan dalka Eritrea iyagoo Siyaas Afarqa u ballan qaaday in markaas dawladdaas maadaama uu daris la yahay uu dhinaca ciidamada uu saanad military uu gaarsiiyo sidoo kalena dalkiisa aan laga weerarin arrimaha kale ee la tilmaamay in Sacuudigu ay heshiiska kula gaari doonaan Afarqa intuu Sacuudiga joogo ayaa la tilmaamaya inay quudareynayaan inay mid kamid ah dekedaha ku yaala Eritrea ay markaasi dawladda wadanka Sacuudiga ay maalgelin ku sameeyso qaar warbaahinta maxalliga ee dalka Eritrea waxa ay qorayaan maanta in markaasi dekadaasi ay tahay dekada Masawa oo markaasi dawladda Eritrea hadda ay markaasi ku shaqeyso dhinaca kale qaar kale waxa ay sheegayaan in dekada Casab oo dawladda Ethiopia muddooyinkii u dambeysay ay doonaysay inay markaasi Sacuudigu ay doonayaan inay markaasi ay gacanta ku dhigaan Siyaas Afarqa ayaana dhinacaas waxa uu taageersan yahay la yiri haddii Sacuudiga uu dekad dhulkiisa ka siinayo inuu ku wareejiyo midda markaasi Casab oo ay Ethiopia doonayso si damicii dawladda Ethiopia meesha looga saaro arrintaas oo iyaduna keenaysa inay xiisadda dhinac kale u sii rogto Eritrea iyo Sacuudigu hadda waxa ay samaysanayaan gaashaanbuur xoogan Eritreana waxa muuqata in mid kamid ah dalalka Khaliijka ee ugu maalqabeensana uu gacanta ku dhigayo waxaana la leeyahay waxa laga yaabaa inuu helo qaar ka tirsan hubka kala gadsan ee dawladda boqortooyada Sacuudi Carabiya ay markaasi ciidamadoodu ay ku hubaysan yihiin dhinaca kale ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia ninka lagu magacaabo Abiy Ahmed oo isaguna muddooyinkii u dambeysay ku raad joogay sidoo gaashaanbuur u samaysan lahaa haddii dagaalka Eritrea iyo sidoo kale dawladdiisu oo bilaabmana markaasi uu u heli lahaa dawlado xoog badan oo taageera ayaa isbuuca soo socda waxa la tilmaamay inuu dalkiisa ku soo dhaweyn doono ninka Hindiya ugu awoodda badan ee lagu magacaabo ra'iisul wasaare Narendra Modi kaas oo dhawaan safar ku kala bixin doona dalal ku yaala qaaraddan Afrika sida la sheegay Narendra Modi ayaa waxa uu noqon doonaa ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee in ka badan 10 sano kadib dalkaasi Ethiopia booqda ra'iisul wasaarihii ugu dambeeyay ee dalka Hindiya maamulayay isagoo xukunka joogana dalkaasi booqda ayaa la tilmaamay inay ahayd ugu dambeysay sanadii 2011 halkaas oo kulamo kala gadsan kula qaatay ninkii geeriyooday ee dalkaasi Ethiopia maamuli jiray Mala Zenawi lagu magacaabi jiray kaas oo markaasi TPLF intii xukunka ay joogtay ahaa Narendra Modi sidoo kale waxa la tilmaamay in Abiy Ahmed ay kala hadli doonaan maadaama ay ku midaysan yihiin ururka lagu magacaabo BRICS kaas oo muddooyinkii u dambeysay doonayay inuu loolan adag la galo dalalka reer galbeedka oo Mareykanka iyo sidoo kale Faransiiska iyo Ingiriisku ay ugu horeeyaan
maadaama ay doonayaan inay samaystaan lacag gooni ah iyo sidoo kale suuq gooni ah. dalka Ethiopia ururkaas ayuu dhawaan ku biiray, waxaana muuqata in markaan Abiy Ahmed uu doonayo in Shiinaha iyo sidoo kale Hindida iyo markaasi dowladda Ruushkaba uu gacanta ku dhigo. waana qaar ka mid ah dalalka xilligan la joogo ugu awoodda badan caalamka. Shiinaha iyo sidoo kale Hindidu waxa ay haystaan waxa aan la gaari karin oo ah dad khayraadka markaasi Ilaahay waxa uu dowladahaas ku manaystay in dadkoodu ay aad u tiro badan yihiin oo ayba dhaafeen balaayiin qof, taas oo muujinaysa in markii caalamka saddex loo qaybiyo qayb ka mid ah markaasi ay dalalkaasi yihiin. inta uu ku sugan yahay ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya magaalada caasimadda u ah dalka Ethiopia Addis Ababa oo la tilmaamay inuu booqasho 2 maalmood ku gaari doono halkaas, waxa ay kulamo kala gadsan yeelanayaan dowladda dalka Ethiopia iyo Abiy Ahmed. waxaana la sheegay in Abiy Ahmed uu markaan ballanqaaday waaweyn haysto, kuwaas oo ah in ciidamadiisa loo qalabayn doono, sidoo kalena diyaaradaha duuliyaha leh iyo kuwa aan lahaynba markaasi dowladdiisa iyo ciidamadiisaba lagu qalabayn doono. muddooyinka ugu dambeysay Abiy Ahmed waxa uu sameynayay inuu diblomaasiyadda caalamka uu ka samayso saaxiibo waaweyn, iyadoo shirkii G20 wadamada la isku yiraahdo ee ka dhacay magaalada Johannesburg oo uu ka qayb galay bishii hadda aynu soo dhaafnay, markaasi uu kula kulmay madax aad u fara badan oo ay ugu badan yihiin kuwa reer galbeedka, halkaasi oo kulamo kala gadsan kula qaatay. Abiy Ahmed doorashada soo socotay inta aan la gaarin waxa uu ballan qaaday inuu dalkiisa wax badan ka qaban doono, sida hadda nabadgelyo xumada ka jirtana uu wax ka bedeli doono. ciidamada dalka Ethiopia ayaa la sheegay in lagu amray gebi ahaanba inay soo afjaraan jabhadaha dalkaasi ka dhaqdhaqaaqa, waa ta ugu xoog badan ee Faano oo gobolka Axmaarada ka dagaalanta, iyo sidoo kale midda Oromada ee Ola oo iyaduna gobolka Oromada ka dagaalanta. maalmahan waxaa sidoo kale soo baxaya in jabhada Canfartu ay leedahay oo lagu magacaabo Uguguma doonaysana inay shacabkaasi horeyso, inay ishubaynayso, tababaro kala gedsanna markaasi ciidamadeeda ay u sameynayso. waana dhinac kale iyo furin kale oo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu markaasi wajahayo. jabhadan Canfarta waxaa la sheegay inay taageero xooggan dhinaceeda ka helayso madaxweynaha dalka Eritrea, ninka lagu magacaabo Siyaasa Farqi, kaas oo muddooyinka ugu dambeysay ku jiray inuu dowladda Ethiopia gudaheeda kula dhex dagaalamo. Farqi ayaa Ethiopia ku eedeysay inuu Faano iyo TPLF xiriir la leeyahay, isaguna uu hubeynayo. dagaalka TPLF iyo dowladda Abiy Ahmed ayaa sidoo kale laga cabsi qabaa inuu mar kale gobolkaasi ka bilowdo, iyadoo labada dhinacba ay isku eedeeyeen inuu midba midka kale ka baxay heshiiskii Pretoria ee Koonfur Afrika lagu gaaray sanadii 2022 kaasoo lagu soo afjaray dagaal socday 2 sano in ku dhow oo ay ku dhinteen tiro kor u dhaafaysa 800,000 oo qof inta la diiwaan galiyay, kuwaasoo dad rayida markaasi u badnaa sida la xaqiijiyay. xaaladdu waxa ay muuqataa hadda in Siyaasa Farqi iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia labadooduba ay ku hawlan yihiin sidii ay u samaysan lahaayeen intuusan dagaalku bilaabanin meel ay dabada la galaan oo ay markaasi caawin iyo tashiilaad kale ay markaasi ka helaan. Abiy waxa uu leeyahay dalalka shuuciga gacanta ayaan ku hayaa, Hindida, Ruushka, Chinese-ka ayaan gacanta ku hayaa. sidoo kale ninka la yiraahdo Farqi waxa uu muddooyinkii u dambeysay ka qaraabanayay wadamada Carabta oo ay ugu waaweyn yihiin Imaaraadka Carabta oo la muuqday inuusan hadda haynin Sacuudi Carabiya, dowladda Masar iyo sidoo kale dalal dhowr ah oo markaasi la sheegay inay saaciideyn doonaan. dhinaca kale waxaa muuqata in labada dowladood hadda ay markaasi siyaasadda Mareykanka laftirkoodu ay isku hayaan. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa dhawaan la soo xigtay inuu sheegay in xiisadda u dhaxaysa Abiy Ahmed iyo Siyaasa Farqi uu dhexgali doono, xiisadoodana uu soo afjari doono sida la tilmaamay. saaxiibayaal, xiisaddu marba mar ka dambeysa dhinac kale ayay u kacaysaa. toddobaadyo ka hor waxaa muuqatay in dagaal uu ka dhici karo xadka u dhexeeya labada dowladood, hadda laakiin waxaa muuqata in diblomaasiyadda caalamka ay labada dowladood u kala baratamayaan. haddii midda ku guuleysataana markaasi ay noqon doonto cidda markaasi guusha ay raaci doonto ayaa la leeyahay. intaas ayaan saaxiibayaal kusoo gabagabeynaya barnaamijkeena kooban. waad ku mahadsantihiin la socodka barnaamijyadeena. nagu soo biir oo barteena Magan Media YouTube-ka subscribe ku samee, muuqaalkana like garay, sidoo kalena la sii wadaag saaxiibada si uu meel dheer u gaaro. intaan kulmi doono muuqaalkeena xiga, waana Cabdulqaadir Maxamed oo idin leh nabadgelyo.